sanadkii 1991 waa sanad ay Soomaaliya wiligeed ilaabi doonin sanadkii ay burburtay dawladii dhexe sanadkii ay Muqdisho noqotay magaalo ay rasaastu ka qayliso sidoo kale kumanaan Soomaali ah ay ka tageen guryahoodii iyagoo aanan ogeyn meel ay ku dambeyn doonaan laakiin 1991 ma ahayn bilowga burburku wuxuu soo socday sanado ka hor waxaa jiray khilaaf kacdoon iyo dagaal waxaana si tartiib ah u daciifayay dawladii dalka markii ugu dambeysayna wax walba way burbureen laakiin su'aashu waxay tahay maxaa Soomaaliya keenay 1991 yaa dagaalamay maxaa ku dhacay shacabka sidee dal dawlad lahaa ugu dambeyntiina u noqday dal aan dawlad dhexe lahayn maanta waxaan dib u furi doonaa bog ka mid ah bogagga ugu murugada badan taariikhda Soomaaliya tani waa taariikhda burburkii Soomaaliya 1960kii Soomaaliya waxay xornimada ka qaadatay gumeystihii isla markaana la dhisay jamhuuriyadda Soomaaliyeed dawlad cusub ayaa la sameeyay hay'ado qaran ayaa shaqaynayay waxaana dalka ka jiray nidaam siyaasadeed oo ku dhisan dawladnimo sanadihii xigay Soomaaliya waxay wajahday caqabado siyaasadeed dhaqaale iyo amni 1969kii afgembi military ayaa dhacay waxaana talada dalka la wareegay ciidan uu hogaaminayay Generaal Maxamed Siyaad Barre dawladii militariga waxay dalka ka hirgelisay nidaam cusub waxayna xoog saartay dawlad dhexe oo awood badan laakiin muddo kadib khilaaf siyaasadeed iyo kacdoon hubeysan ayaa bilaabay inay xoog yeeshaan 1980 cadaadiskii siyaasadeed iyo khilaafaadkii dawladda iyo kooxaha mucaaradka ayaa sii kordhay kooxo hubeysan ayaa ka hanqaaday qaybo kala duwan oo dalka ah dawladdu waxay isku dayday inay xakamayso kacdoonada laakiin dagaaladu waxay noqdeen kuwo sii fida markii ay sii xoogeysteen kooxaha hubeysan awoodii dawladda dhexe waxay bilowday inay daciifto magaalooyin iyo deegaano badan ayaa galay xaalad amni darro ah shacabka caadiga ah ayaa noqday kuwa ugu badan ee dhibaatadu saamayso 1991kii wuxuu noqday sanad taariikhi ah oo Soomaaliya nolosheeda bedelay dawladii Maxamed Siyaad Barre way dhacday laakiin markii dawladii dhexe burburtay waxaa meesha ka baxay awoodii qaran ee dalka isku haysay halkaasi waxaa ka dhashay kala tag koox hubeysan iyo hogaamiyayaal siyaasadeed ayaa bilaabay inay ku loolamaan awoodda Muqdisho waxay noqotay goob ay si adag ugu dagaalamaan kooxo kala duwan dagaalkii sokeeye wuxuu sababay burbur ballaaran guryo ayaa la dumiyay wadooyin ayaa noqday goobo dagaal dad badan ayaa ehelkoodii waayay qaar waxay ka carareen dalka dad badan ayaa u qaxay gobollo kale Soomaaliya waxay gashay mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee taariikhdeeda dagaalku ma kala soocin dadka caruur haween waayeel iyo dhalinyaro ayaa dhamaantooda la kulmay saameyntiisa qoys badan waxay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka tagaan iyagoo aanan ogeyn meesha ay ku dambeyn doonaan qaarkooda waxay galeen xeryo barakacyaal qaarna waxay u tallaabeen dalalka deriska ah dhibaatadu ma ahayn oo kaliya in guryo la waayay waxaa sidoo kale burburay adeegyo badan oo dawladeed waxbarashadii dalka way daciiftay caafimaadkii wuu burburay amnigii dalka wuu burburay sidoo kale dawladnimadiina waxay gashay marxalad mugdi ah dagaaladii iyo qalalaasihii siyaasadeed waxay sidoo kale saameeyeen wax soo saarkii iyo dhaqaalihii dalka qaybo badan oo Soomaali ah waxaa ka dhacay xaalad bini'aadantinimo oo aad u daran caalamku wuxuu bilaabay inuu si weyn uga hadlo xaaladda Soomaaliya hay'ado iyo dalal shisheeye ayaa keenay gargaar bini'aadantinimo 1992kii qaramada midoobay waxay kordhisay dadaaladii lagu caawinayay shacabka kadibna Soomaaliya waxa ay mid hawlgalo caalami ah oo lagu talagalay in lagu ilaaliyo gargaarka laakiin Soomaaliya ma ahayn meel sahlan iyo in la isku dayo si loo soo celiyo xasiloonida dagaaladu waxay sii wadaan inay caqabad ku noqdaan dadaalada nabadda burburkii Soomaaliya ma ahayn dhacdo hal sabab ku timid waxay ahayd isku darka arrimo badan waxa ka mid ah siyaasadii xukunkii militariga iyo khilaafaadkii ka dhashay kacdoonadii hubeysnaa ee ka dhanka ahaa dawladda daciiftinimadii hay'adihii dawladeed loolankii awoodda ee kooxihii hubeysnaa kadib 1991kii kala shakigii iyo khilaafaadkii bulshada dhexdeeda burburkii dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada faragelino iyo saameyn dibadeed oo kala duwan arrimahani oo dhan markay isbiirsadeen dawladnimadii Soomaaliya waxay noqotay mid aad u jilicsan inkastoo dagaaladu jireen rajada dawladnimadu ma dhimanin shiro badan oo nabadeed ayaa la qabtay hogaamiyayaal siyaasadeed ayaa isku dayay inay dhisaan dawlad cusub inta u dhaxaysay 1990kii ilaa 2000 waxaa dhacay dadaalo badan oo lagu doonayay in Soomaaliya dib loogu soo celiyo dawlad dhexe 2004 waxaa la sameeyay dawladda federaalka ku meel gaarka ah sidoo kale 2012kii waxaa la sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya oo ah nidaamka federaalka ee dalka laakiin jidka dib u dhiska dawladnimadu wuxuu ahaa mid dheer oo aad u adag Soomaaliya maanta waxay ka duwan tahay Soomaaliya 1991 sababtoo ah waxaa jira dawlad federaal ah hay'ado dawladeed ciidan iyo booliis magaalooyin dib u soo kobcayo iyo dhalinyaro isku dayaysa inay mustaqbal cusub dhisaan laakiin caqabado badan ayaa weli jira amni darro khilaaf siyaasadeed dhaqaale xumo iyo arrimo bulsho ayaa weli saameynaya dalka iyo kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxay leedahay dad aan weligood ka quusanin dalkooda taariikhda burburkii Soomaaliya ma ahayn taariikh ku saabsan dagaal oo kaliya waa cashar ku saabsan waxa dhaca
marka dawladnimadu daciifto, marka siyaasadda lagu bedelo hub, iyo marka ay shacabku waayaan cid ay ku tiirsanaadaan. Laakiin taariikhda sidoo kale waxay ina baraysaa hal arrin: dal burburi kara wuu soo kaban karaa. Soomaaliya waxay soo martay dagaal, barakac, gaajo iyo burbur, laakiin weli way taagan tahay. Mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku xirnaan doonaa sida jiilalka cusub uga faa'iidaystaan casharadii hore. Laakiin su'aashu maahan oo kaliya Soomaaliya way burburtay. Su'aasha maanta muhiimka ah waa sidee Soomaaliya mar kale u noqon kartaa dal xooggan oo midaysan. Ogow, taariikhdu way dhacday, laakiin mustaqbalka weli waa la qorayaa.